بابا تعليم تاريخ درجة يا بيرا كيا ملو تاتو دقالها تركنا يا علي دغلا تركنا يا علي بسم الله الرحمن الرحيم qodobka labaad oo aan rabay inaan ka hadlo oo ah Puntland isku haynteeda gudaheeda iyo wixii iyada kala firdhinteeda la ku yeelan kara oo dadka gudaha ah ama meel dibadda ah ka soo dabqaata bariidana ku istaagay Puntland isku haynteeda maxaa horta sabab u noqon kara kala geynteedana maxaa sabab u noqon kara marka ugu horeysa Puntland isku haynteeda koow waxaa sabab u noqon kara madaxdeeda oo ka shaqeysa dadku wuxuu isku jeclaan karo madaxdeeda oo daacadnimo muujisa inay dadkeeda u adeegayso madaxdeeda oo danaheeda khaaska ah aan kaga adeegan awoodda xukunka ee danaha shacabka u adeegta madaxdeeda oo si gaar ah aan u ladnaanayn oo si gaar ah aan hanti uga tabcanayn dadka shacabka waraabinaysa oo meeshay joogaan biyaha ugu geynaysa oo caafimaadka ugu geynaysa oo wadada ugu geynaysa oo shaqo abuurka ugu geynaysa oo waxbarashada ugu geynaysa oo daaweynaysa oo u turaysa shacabku sidaa markay arkaan xukuumadana waa jeclaanayaan shacabkuna waa isjeclaanayaan Puntland gudaheeduna meel khayr oo la jecelaaday noqonaysa wada jirkuna waa xoogoobayaado dad wada jiray noqonaya haddii madaxdu dhabarka u duudo dadka haddaan caafimaadkooda dan laga lahayn haddaan biyahooda nadiifka dan laga lahayn haddaan waxbarashadooda dan laga lahayn haddaan shaqo abuurkooda iyo nolol abuurkooda dan laga lahayn haddaan biyaha loo celinayn badaha ku shumaya haddaan kalluunka loo soo bixinayn haddaan ilmahooda inay shaqo helaan laga shaqeynayn haddaan qaxa ku socda wadankii laga guurayo sababaha kalifayo wax laga qaban qaxa madax aan u tureyn dalka tamashle u joogta tamashle iyo hanti ka tabcasho iyaga iyo qaraabadoodu sidaa markay madaxdu noqoto cid dul qaadanaysa ma jirto waa la isnaacayaa Puntland nimadiina waa laga niyad jabaya shacabkuna waa kala furfuranaya waxa dadka iyo dalka burburinayana waa madaxda laftigeeda dhigmiiradka noqonaysa dhigmiiradka ayaa shacabka inuu isnaco iyo inuu moral jabo san sababta u ah waa madaxda xun dad shacab ah oo madaxdiisa jecel oo madaxdiisu u adeegayso oo shacabku ku kalsoon yahay dawladooda oo maaragtay danahoodii laga shaqeynayo waa isjeclaanayaan waana midoobayaan gudahoodana cidi wax kama sameyn karto dibaddana cidi ugama imaan karto kulli waxay u yeelan karaan adkaysi iyo difaac iskaga xajiyaan hase yeeshee markii ay madaxdu noqoto shilin cunaysa dadka oo ninkii madaxda ahaa uu noqdo gafane sida shilinta markii horena qabqablay uu ahaa marka dambana sida gafanaha u ballaarta oo wixii asaga ku dhowdhowsaa ula dhergaan oo dadka dhiigga laga cabayo ha hadlina oo ha dhaqdhaqaaqina xasiloonida ilaaliya xasiloonida bahal hadduu neef qabsado xasiloonida ilaali had neef yahow oo shidada jooji hadduu ku yiraahdo neefka inuu xasiloonida ilaaliyo danta ugu jira maxay tahay si fiican bahalku inuu u cuno Soomaa xasiloonida waxa lagu ilaalin karaa oo ay Puntland ku wada jiri kartaa oo ay cadow dibadeed iyo mid gudeedba kaga nabad gali kartaa madax daacadihi markay gacanta ku hayso talada ummadda dadkiina loo adeegayo waxaan leeyahay Puntland khatar waxa ku ah wixii xagranaya wixii kala geynaya wixii aan u adeegayn wixii ka adeeganaya wixii aan dharga aamusno maxaa u qaylinaysaa leh aniga meeshan doona adduunka diyaarada ugu raacayo soo daaweysanaya dadkayga adiga dadkaagu ha leedo caruurtaadu ha baqtido aniga caruurtayda dhargayse caruurtaadu ha dhimato aniga caruurtayda caafimaad helayse caruurtaadu dayac banaanka ha ugu baabaado aniga caruurtaydu dabaqayay galaysaa ma sidaas ummad ku heshiisa ma sidaas shacab iyo madaxi ku heshiiyaan ma sidaas shacab isku jeclaada waxa la rabaa dadka Puntland oo shacabka ah in shacabkuna garto meesha baadidu jirto
madaxduna garato meesha baadidu jirto baadida maqan oo loo baahan yahay oo wada jirka ah oo ammaanka ah oo isjeclaanta oo israbida ah waa in la helaa madax la jeclo u haysa dalka iyo dadka markii taa la helo ayaa dadka iyo dalkuba hagaagaya shacabkuna isjeclaanaya Puntlandna la jeclaanaya deegaankana la jeclaanaya laakiin wax allaala wixii dhacayo oo ummadda ku dhacayo wax igama gelin tamashlaan ku jiraya hanti baan ka tabcaanaya saasaana madax kuugu ahay sidaasna ku aamus cadowgana anaa kaa ilaalinaya cadowgayga ilaalinaysa ma cadow kalaan leeyahay cadowga koowaad adaa ah ma cadow kalaa jira bahal raq ku fadhiya bahalada kalena ka ilaashanaya inay raqda ugu yimaadaan sidaa in loo ekaado lama rabo sidaa in loo ekaado lama rabo neefka bahalku ku fadhiya bahalada kale inuu ka ilaashado neefka dani uguba jirto asagaaba cunaya isagaa ku fadhiya marka difaacid ma aha bahal neefka ku fadhiya inuu bahalada kale ka ilaaliyo inay ugu yimaadaan difaacid lama yiraahdo ha neefka waa inaan bahal cunayne uu barwaaqaysan yahay oo ladan yahay marka ka bacdina bahalka laga ilaaliya laakiin anaa bahal oo ku cunayo kugu fadhiya bahaladii kalena waa ka ilaalinaya maxaad rabtaa waxaan rabaa adaaba bahal kale bamaanaa leh adaa bahala taa waa in lagu baraaruga madaxdu dadka indhaha in la iska rida maaha waxaan suuragal ah in la isu sheegana maaha caafimaadka Puntland Hindiya ay dadkeedu ku baaba'ayaan ilaa Turki ilaa Malaysia oo aan hal cusbitaal oo dadka daaweynaya ama daaweyn kara aan loo dhisin xaq miya malaayiin dollar 50 milyan 40 milyan intii la doono malaayiina in hadba la rarto xaq miya oo la yiraahdo duruufta adag oo maartay hantidu ma gaari karo cusbitaal wax lagu dhiso haye laakiin waa gaari kadhaa wax lagu doonto madaxnimo oo malaayiin dollar way gaari kadhaa hantida Puntland waa la heli karaa markii ay tahay doorasho halkii qof in $100,000 la siiyo laaluusha waa loo heli karaa laakiin looma heli karaa in cusbitaal loo dhiso ha taamiya marka macruur lala hadlaya dadku ma ilmo la sasabaya madaxda Puntland khatarta Puntland ku iman karta ma aha khatar federaal uga imanaysa federaalku waxba kama tari karo عقدة قوة فدرال كهذا يماذا أي وقبان بوتلان وحبك كما ترى كرت شعبك بوتلان كما نترتين عد كلو حكتر له هذا رباته وكين كتان مشرته رباته شعبك بوتلان يهالست أي كتشران وما موللا ديج ميرتك أو دوشك جفرية وديج كعبية وأنت شعبك ديج اللي يعبه أيقو ميدو بنفته كان على بربر ودعيه أما كلا فرد يو ميل والباو كلا عرر يو ظروفتي دانت ugeynayso meel aan macquul ahayn marka arinta waxa loo baahan yahay dadka Puntland dad ehel weeye dad wada dhashay weeye in run la isu sheego Puntland looma dhisan koox yar inay ku naaxdo koox yarna qabiil maaha dad baa u qaba qabiilinu meesha iska hayso sida ma aha nin hadduu 10 caruur lahaa oo hal midi gafana noqdo sagaalka kalena baktiyayaan ما waxa la oran karaa reerkiisi baa dhergay lama oran karo marka qabiil arintaani maaha waa hadba koox danaysata ah oo maartay wax isla boobtaa meesha timaada in shacabku maartay ay moodaan qaar wax bido ma aha shacabku waa wada dhibaataysan yahay dhibaatadana waa ka siman yahay marka waxa la doonayaa dadka ehelka oo wada dhashay oo wada dhalashada meesha ku wada jooga wada dhalashadooda inaan laga xumayn maamulku wada dhalashada inuu sadibaatain wada jirka inuu sadibaatain dib inuu isugu noqdo khaladaadka habeen iyo maalin maamulku ku jiro dadka aan tayada lahayn oo xilalka loo magacaabayo habka xaaraanta ah oo laaluushka ah oo jagada lagu imaanayo baarlamaanka sida foosha xun oo loo boobayo sida foosha xun oo taladu tahay waxaas waxay u baahan tahay si qodo dheer in looga fakaro oo looga fiirsado nabcaan iyo jeclaan iyadoo ayan ku xireen arintu nabcaan iyo jeclaan loo baahnay waa khaldan tahay iyo waa saxan tahay waa in laga hadlaa ha waxbuu qofkan waa waxtar arinta tan iyo waxtar ma aha waa in laga hadlaa markiiba arinta in loo xawilo cid baa la nicib iyo cid baa la jecel yahay reebel baasaan reeb waa wacyi yari waa faham gaabni walaalka wax biinaya waraa wax biinta jooji hadaa tiraad ma nibcid saasaana Puntland u baahanta walaalka wax biinaya jooji wax biinta ma nacayba mise asagaad wax taraysa markaad wax biinta ka celisid taasay u baahan tahay
intaa waxaa weheliyey shacabka puntland oo dad wada dhashay oo walaalo ah wada dhalashada ay isugu dulqaadanayaan oo ku wada joogaan maamuladan puntland hadda waayadan dambe oo dhan ka dhalanayay ma bedeli karaan aaya ka talinta ummadda puntland ku nool maamulkan yaro marna imaanaya marna tegaya aayihii ummadda oo dhan gacanta looma wada gelin karo maxaa yeelay kama muuqato mas-uuliyad la isugu halayn karo sidaa darteed qabaa'ilka iyo beelaha iyo ummadda puntland ku nool idinkoon isnicin idinkoon kala tegin idinkoo aan meelo kala aadin ha la isweydiiyo war sidee yeelaa maamuladii ina maamulayay noqon waaye waxaan ka reebnay ama ka sugaynay kuwa noqdo oo ka soo baxa noqon waaye sidee yeelaa waa in la isweydiin karaa iyadoon meelo loo kala carcararin iyadoon qolana nicin iyadoon cid kale u xijin waa in la isweydiin karaa la yidhaha war sidee yeelaa war waxaan mas kuma sii jiri kara maxaa inoo talaa iyadoon dhalashadii laguna kala tegin layskuna nicin ana dhexdeeda waxaan dadka qaar ka maqlayay iyadoo ay ka hadlayaan dhalashada iyo siyaasadda la isku khaldayo waxaas dadku dhalashay wax isugu yihiin siyaasaddana waa lagu kala tegi karaa sidaa sax ma aha haddii siyaasadda lagu kala tago siyaasadda haddii lagu kala tago oo siyaasadda laysku dhowran waayo dhalashada waa laysku dilaya waa lagu kala dhimanaya maxaa maalan ka dhigan siyaasaddaad waxaad ku raacday idinkoo isla degan baad siyaasadda qaybtiin waxay ku raacday qayb col qoladii kale la tahay marka qofkii colkaaga soo kaxaysta haddaad siyaasadda adigu aad maaragtay ku raacday qof kii kula dhashay meel col la yahay haddaad siyaasadda ku raacdo soo isdili maysaan waxaa ka hor fiican wada dhalashadiina inaad ku salaysaan aayihiina markaa ka tashanaysaan iyo maamuladiina markaa ka tashanaysaan wada dhalashada inaan wax loo dhimine wada dhalashada laga bilaabo in la wada faa'iidaysto la wada jiro la isla socdo dad tale ku kala tegay wada dhalasha u dhowrnaan mayso waa ka burburaysaa marka taladu inay burbudho ma aha maamuladan hadda ama kan jooga ama kuwii ka horreeyey iyo waxa la midka ahuna aayaha ummadda laguma sii dayn karo dadkani waa dad wada dhashay dhalashay meesha ku wada degan yihiin dhalashadooda inay wax isu weydiiyaan weeye taasaa ka muhiimsan wixii ka khaldanna inay dhalashadooda isaga yimaadaan oo dhalasho wax isku weydiiyaan oo yidhaahdaan war dad wada dhashaynu ahayne waxbaa ina ka qaldana maxaan yeelaa haddii maamulku ku fillaan waayo inuu ummadda hogaansho waa in loo helaa waddo kale oo aayihii ummadda iyo wadajirka ummadda lagu badbaadsho waa in loo helaa oo la isweydiiyaa oo laga tashadaa maamulku cirka oo jaha walba kaaxiga ma aha maamul gaban oo kooban buu ahaa inuu dhiga nugulyo wax qabto dadka u adeegayna ahayd hadduu xilkiisii gabay oo ka seexday isweydiintu abbaarta ahi waxa weeye in la yidhaahdo sidaan kuma sii jiri karo haddaan saa la yidhino saa dhalashada laysu waraysan waa lagu kala tegayaa meesha waa lagu kala tegayaa laysuma dad walaalaaho wada dhashayna isuma dowladayn karaan meesha walaalnimaa lagu wada degan yahay ha isuma dowladayn karaan qof walaalnimo kuugu hoganayo kuugu hoggaansan hamoodin inaad u dowladayn kartid adigu dowladayn meesha ma taale adeeg yar baa laga rabay maamulku inuu adeeg hagaajiyo inuu adeegiina waa gabay muxuu markaa xurmo badan oo uu maanta dadka ka mutaystay ma jirto waxaa soo hartay maamulka waxay ishayaan dowladda federaalka marka maamulka waa inaan laga hor imaan oo maxay isku hayaan maamulka iyo dowladda federaalku maxay isku hayaan su-aashaas oo la isweydiiye maaha maamulka puntland ka dhisan sawkii xasan dhisay maaha hadday xasan danaha ay leeyihiin oo xasan u dhisanayay hadday isku waafaqaan waa fiican tahay dowladda federaalku miya haddii danaha xasan iyo maamulka puntland ka jira ay ku heshiin waayaan dana gaarana waa xun yahay maya markaa xasan annaga haddaan puntland nahay markasta waa noo xumaa waana noo xun yahay laakiin maamulka puntland xukuma waa saaxiibkii shalay ee xasan waana saaxiibkii haddeer xasan soo dhisay dadka oo kiyaala in loo geliyana ma aha oo indhaha laga rido marka hadday maanta iswaafaqaanna dadka in loo sheego maamulka xamar waa fiican yahay hadday iskhilaafeenna waa xun yahay saas ma aha dana khaasa markii dana khaasa ee la isku qabto
cabirku ma aha waa fiican yahay iyo waa xun yahay danaha khaaska oo lagu heshiiyey ama danaha khaaska oo lagu heshiin waayo ma aha cabirku taas cabirku waxa weeye ummadan Puntland danteedii weeye cabirku marka ummadda Puntland danteedii ma lahaya maamulku ummadda Puntland danteedii ka shaqeynaya mise waa raq uu ku fadhiyo Puntland ba waa raq bahal ku fadhiyo weeye marka bahaladii kale ka ilaashanayo nooga dhigaya inuu bahaladii kale iska celinayo baan dantiini idinku haya ma jirto bahalna cunaya anaga dan nooma ilaalinayo bahalada kale bahal dirir haduu rabe marka waa in la arkaa dan fulaysa oo Puntland leedahay oo shacabka Puntland raali ku noqon karo oo isu aruurintooda keenaysa oo isjeclaantooda keenaysa oo noloshooda dhulka taalo baabacday oo wadankiiba in laga cararo laga guuro hadda uu maaragtay marayo awal dhalinyarada qaxi jirtay laakiin hadda shacabkii baa qaxaya guryihii baa guuraya qoysaskii baa guuraya marka maxay tahay dibiga geesaha weyn looda geedka uma ogolaado inay harsato haday ka dareedana ugama dambeeyo waa raaca ma sidaasay noqonaysaa madax Puntland shacabku markuu meesha baneeyo miyayna hadhow ka tagayaan meesha wadanka qax baa ku socdo umadu waa cararaysaa waa ka cararaysaa waa lagu noolaan waayay arrintaas marka waxay u baahan tahay taloob guda ballaaran oo qabaa'il leh oo dhaqan leh oo aqoon-yahan leh oo saraakiil leh oo ummad weyn leh oo dibad wax jira leh oo wax dalka jooga leh oo heer walba leh oo isweydiiyo jiritaankooda dadka reer Puntland jiritaankooda iyo jirkooda isweydiiya mar baan si gaar ah uga hadlayaa haddii alla idmo SSC dib baan u dhiganaynaa taas salaamu alaykum